Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga waan isalaamay. Maanta videogayga waxaan jeclaaday inaan iga jawaabo su'aal aan markasta i weydiisaan in badan i weydiiseen. Su'aashaas ay tahay sidee ku baratay Ingiriisiga? Luqadda Ingiriisiga sidee ku baratay? Luqadaha sidee ku baran karnaa? In badan baa ii soo qorteen. Insha Allah maanta waan iga jawaabayaa videogan. Hadda aan videogeena bilowno. Videogeena intaana bilaawin please like subscribe kayga ilaawina comment-kana ra'yihiina ii soo qora. Waan isalaamay. Hadda aan videogeena bilowno. Okay, waxa koobaad luqadaada rabta inaad baratid ugu muhiimsan waxaa waaye horta ujeedadaada inaad garatid. Aniga luqadan maxaa rabaa inaan u barto? Luqadan maxaa waaye hadafkayga inaan u barto? Ma jaamacad baa rabaa inaan barto oo luqadan muhiim waa inaan barto mise wadan baa aadaya, qurbada baa aadaya, wadankaas cashan dadkiisa luqadiisa inaan ku hadlo, luqadaas u baahan inaan barto. Waa inaad ujeedadaada diyaaristaa, ujeedadaadana waa inaad garataa. Hadaa ujeedadaada garato madaxaaga gelisid aniga luqadaas waa muhiim inaan barto oo madaxaaga galo luqadaas oo baran doonta. Horta labada koobaad waxaa waa inaad ujeedadaada diyaarisato, ujeedadaada garato aniga luqadan maxaa rabaa inaan u barto. Sababta maxay tahay? Ma jaamacad baa rabaa inaan barto mise waxaa rabaa in wadankaas aado, wadankaas luqadiisa inaan bartaan u baahanahay. Waa inaad ujeedadaada garataa hadba kadib aad ku bilowdaa shaqada. Okay, tallaabada labaad waxaa waaye inaad luqadaas in badan dhageysatid. Luqadaas in badan inaad dhageysatid oo madaxaaga gasho waa wax ugu muhiimsan luqad hadaa rabtid inaad baratid. Yacni in badan waxaa la weydiiyay dadka oo luqadaha badan bartay oo af Ingiriisiga wax lagu dhahaa polyglot baa la weydiiyay waxaa lagu yiraahday yani sidee yani ku barateen ku bilowdeen luqad inaad baratiin. Inta ugu badan waxay dhaheen 70% waqtigeena waxaan siinaa inaan luqadaas dhageysano. In badan dhageysano yani 70% waqtigiisa wuxuu siiyaa inuu luqadaas dhageysto. So luqadaas inaad dhageysataa in badan inaad dhageysataa. Sida hadda oo babyga hadda dhashtay. Babyga hadda dhashtay sidoo ku bartaa luqada. Asagaba u dhageystaa. Hooyadiis u dhageystaa, hooyadiis sidee ku hadasho u dhageystaa, sidee u sheegayso u dhageystaa. Okay, hatta tartiib hadda kadibna tartiib hooyadiis u qalidaya. Hooyadiis sidii waxay sameysay u sameynaya. So yani waxa koobaad waxaa waa luqada hadaa rabtid inaad baratid waxaa waaye inaad luqadaas in badan inaad dhageysatid. So dhageysiga waa inaad waqti badan siisaa. Okay, luqada Ingiriisiga rabtaa inaad dhageysatid, luqada Ingiriisiga rabtaa inaad baratid. Sidee ku dhageysan kartaa? YouTube wax fureysaa, internetka fureysaa, filmna daawanaysaa, waxa jeceshahay, waxa adiga kugu xiran tahay. Luqadaas inaad dhageysatid muhiima. Mesela waxa jeceshahay inaad dhageysato wararka Ingiriisiga fur oo dhageyso. Okay, in badan hada dhageysatid sidaan ugu sheegay waqti ahaan tartiib luqadaas adigoo barataa as arkaysaa. So yani marka koobaad marka dhageysanaysid waxa dhahaysa ani waxaan ma fahmayo, waxa dhahaysa focus ma noqon karo. Waa isku dhahay kartaa, waa isweydiini kartaa saas laakiin si kastaba waqti sii inaad dhageysatid oo tartiib adaa arki doontid adaa fahmaysid tartiib. So dhageysiga waqti badan waa inaad siisaa. Waqti badan markaa siisid dhageysiga waxaad arki doontaa tartiib adigoo baratay, tartiib adigoo dhageysid alla aniga jumlad ahaan yani jumladaas oo dhan aniga ma aqaani laakiin erigaas waxay macno leeyihiin waa fahmaya. So tartiib waad ku fahmi doontaa dhageysigana waqti badan si. Talaabada labaad saas ahayd. Dhageysiga mesela dad badan baa arkaysa ku dhahaya aniga Quraanka waan xafiday dhageysi ahaan. Dhageysigan ku xafiday Quraanka. So Quraanka dhageysi lagu xafidaa babyga jididka hadda dhashtay asagana yani dhageysiga luqad ku bartaa. So dhageysiga waa muhiim jiddan. Okay, dhageysiga waqti badan siiya. Okay, talaabada kale waxaa waaye akhriska. Akhriskana waa muhiim jiddan. يعني آيات دوكو بعد أي سور دكتي اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحان الله. اقرأ يعني أخرج ومهم جدا. أخرسك آدي مهم سيء. لقد هذا رجينا براتيد دقيس كدب وحاواي أخرينتا وقت بدن وإناسيس. أوكي ما أخرين كارتا في إنجليزية كتاب يالا أخرين كارتا إنتاسو كتاب يالا باجيرا أو ستوري شيكيال أوكي waxaa jeceshaa waa akhrin kartaa laakiin hadaa jeceshahay waxyaasha cilmiga waa akhrin kartaa, waxyaasha oo storyga sheekooyinka waa akhrin kartaa. Okay, waxaa jeceshahay akhri. Muhiim inaa akhrisid. Akhriska maxaa ka faa'iideysaa? Akhriska waxaa ka faa'iideysaa ereyaalsida baranaysaa, ereyaasha sida loo qora baranaysaa. For example, jumla akhrisay, jumladana ereygan waxay macno leeyihiin waa taqaan laakiin jumla ahaan ma fahmaysid. So tartiib
waxaa fahmaysaa inaad jumladaas saas in la micno tahay. Yani intaasoo waxaa jira eryaal oo isku xiran af ingiriisiga ee micno khaas leeyihiin, eryaashaas baranaysa. So akhriska aad iyo aad u muhiimsan yahay. For example, waxaa jira kitaabyaal saan oo kaleeta ana tusaya. For example, aniga kitaabyaashan kaleeta aan akhriyay waxaa waaye story. So storygana مثلا waxaa waaye soddon mise fiiriyo okay waa 35 page. okay hadda kadibna waxaa ku qoran practice baa jira kaa weydiinayaan xikaayada sida u fahamtay. kitaabayaasha kaleeta aad u fiican waa kitaabayaal yar waan akhrin kartaa si dhaqsan oo ku dhameyn kartaa waxyaano ka baran kartaa eryaal jadiid ka baran kartaa. So mesela kitaabayaasha kaleeta akhrin kartaa. okay waxaad akhrin kartaa waxyaasha cilmiga, waxaad akhrin kartaa wararka, akhrin kartaa af ingiriisiga waxaad jeceshahay. So akhriskana waa muhiim jiddan. waxaa jira internetka in badan macluumaad badan baa ka heli kartaa. So internetka ka faa'iidaysta. waxaan ii sheegay 3 website ka faa'iidaysan kartiin akhris ahaan. storyyaal iyo kitaabyaal baa leeyihiin aan ii sheegi doonaa. midka koobaad waxaa waaye storyberries.com halkaan igu soo qori doonaa. videoga hoostiisana waan igu soo gelin doonaa insha Allah. storyberries.com wuxuu leeyahay storyaal yaryar oo akhrin kartiin ka faa'iidaysan kartiin for level 1 iyo level 2 yani A1 A2 waa ka heli kartiin storyaal. website-ka labaad waxaa waaye Read Theory. website-ka saddexaadna waxaa waaye Storynory, asagana waxaa waaye storyaal iyo qisasyaal waaye waa ka faa'iidaysan kartiin waa akhrisan kartiin. So saddexdaas website-ka aad ka faa'iidaysan kartiin akhris ahaan. Believe me, these steps would improve your speaking fluency. Also, it helps you practicing your pronunciation. Tallaabada kale oo muhiim kana ah waxaa waaye inaad luqadaas ku hadashid. aad iyo aad asagana u muhiimsan luqadaas inaad ku hadli kartid oo luqadaas mesela inaad sheegi kartid waxa rabtid inaad sheegtid. For example, meesha joogtid ka raadi haday jiraan speaking club. speaking club waxaa waaye meesha aad aadaysid oo dadka af ingiriisiga native speaking, dadka oo af ingiriisiga luqadooda ay asliga tahay, luqadooda ay ku dhashteen ay tahay, aad tugaysaa macallimiin baa jooga iyo dadka kale ayakana ingiriisiga rabaan inay bartaan Allah hadli kartaa. So sidaas tartiib waxaad arkaysaa in speakingkaaga inuu horumaray. So speaking club hadaad ku leedihiin meesha joogtiin raadi oo speaking club aad iyo aad u muhiimsan yahay. For example, aniga husbandkayga, my husband asaga wuxuu aaday speaking club ilaa 2 sano bar. maasha Allah ingiriisiga hadda sidoo ku hadlayo maasha Allah. awal ingiriisigiisa 0 ahaa laakiin hadda maasha Allah level B1 B2 uu gaaray. So speaking club aad iyo aad u muhiimsan yahay. asaga yani kursa ma aadin, meel kale ma aadin, bas wuxuu aaday speaking. So speaking ku iska dhisay markasta maalin kasta speaking hadaa samaysay ingiriisi maasha Allah yani waqti hadaa siisay speaking oo ka faa'iidaysan kartiin. So speakingna waa muhiim. يعني speaking club inaad raadisiin hadaad leedihiin. hadaadan lahaydin speaking club sidee yani practice u samayn kartaa, sidee yani practice u samayn kartaa, san u samayn kartaa. For example, gurigaaga adoo joogtid YouTube ka fur waxaad arkaysaa fiidiyaasha noocan oo kaleeta ay ku qoran yihiin English speaking practice shadowing method. waxaa waaye yani masala qofka oo luqadiisa asliga tahay ingiriisiga asoo ku hadlaya sidoo ku hadlay camal inaad ku hadashid. jumladu sheegayo kaleeta jumladaas adigana inaad sheegtid laakiin sidoo leeyahay xarfi ahaan iyo note ahaan yani sidoo ugu dhawaaqayo qeylista iyo gaabistaba inaad sidoo sameynayo kaleeta inaad sameysid. yani taqliid camal waaye inaad taqliid gareysid, yani inuu wuxuu sameynayo camal inaad sameysid. okay yani pronunciation sida ugu sheegayso sida ugu dhawaaqayso xarfiyaasha sida ku dhawaaqaysa camal inaad ku dhawaaqdid waaye shadowing method. macna tahay another night will and I مثلا will and I اتري لكن sida ku qoran yahay waxaa will and I. So like idin ka dhahayso will and I sida dhahaysa camal inaad tiraahdiin sitting down to dinner sida dhaqsi ku hadlaysa camal inaad ku hadashid. saas oo kale tartiib shadowing ala dhaha. when we heard thump above our heads. Okay, shadowing method saas ahayd.
وكيف إذا كرتين هذا يعني speaking كاجا هذا ربتين إن هذا هرمرسيد سيدا وكلا speaking كا سيدا كهرمرين كارتا speaking كاجا هاد كهرمر كارتا إذا مالين كستا أديك إسلا هذا الشيء أديك في إنجليز إسلا هذا عندنا هي سيدين إن هذا الشيء في إنجليز أديك إسلا هذا أوكي مثلا record yourself while you're speaking أديك إسلا هذا الشيء مثلا مارت وحربتين أسميه سيد أنا وحس روينا أسميه في إنجليز كفكر أنا سيدا كله هكرا speaking كاجا ترتيب حركة هرمرسي so مثلا maanta waxaas rabaa inaan sameeyo ku hadal af ingiriisi xataa hadaad taqaaneen search garee sideen ku dhahi karaa kelimadaas ereygaas okay so adiga isla hadal af ingiriisi record yourself yani cod iska qaad okay maanta saas rabaa inaan sameeyo adiga isdhegeyso waxaad arkaysaa adiga sida ku dhawaaqaysid tartiib waxaad arkaysaa dhawaaqaaga inuu ficnaaday af ingiriisiga so waxaa ku noqon karta odayaasha duubtay adiga mar hore mesela 2 isbuuc ka hor sida ku dhawaaqaysa sida hadda ku dhawaaqaysa waxaad arkaysaa inaad horumartay so you can do it saas kale taana waa ka faa'iideysan kartaa adiga isla hadlaysaa naftaada la hadlaysaa ingiriisi speaking muhiim waaye hadalka sida ku hadashid iyo sidoo kale sida hadalayaasha iyo erayaasha ku dhawaaqi kartid hawa talaabada kale waxaa waaye luqadda hadaad rabtid inaad baratid ugu muhiimsan asagana waxaa waaye inaad luqaddaas qortid okay qoritaanka waa muhiim waxaa qori kartaa qori kartaa maanta waxaad samaysay waxaad qori kartaa shalay waxaad samaysay waxaad qori kartaa biri waxaad rabtid inaad samaysid waxaad qori kartaa bilaanyaashaada waxaad rabtid inaad samaysid 10 years after 10 years waxaad rabtid inaad samaysid qor okay wax kasta madaxa kuu soo dhigi karo qor your thoughts okay. Write your thoughts write what you want to do write what you do yesterday write whatever comes to your mind waxaad madaxa kuu soo dhigaba qor okay qor waxaad jeceshahay inaad qortid okay aham shay inaad qortid write your plans qorshayaashaada qor for today for 10 years for after 10 years or write what you did yesterday what I did think about it and write the most important thing is to write okay write your ideas write your thoughts write something that you love write مثلا waxaad samayn kartaa kitaab akhrin kartaa kitaabkaas waxyaasha ka fahamtay waxyaasha ka istafiiday aqoon kartaa af ingiriisiga for example think about it and write okay aham shay inaad qortid inaad wax qortid for example aniga markaan luqadda turkiga baranayay erayaasha jididkan bartoba waan qori jiray markaan qoro waxaan ku qori jiray warqayaal yariisa waxaana ku dejin jiray jidaarka sidaan markasta xusuusto oo akhriyo oo fiiriyo ereygan bartay so waan qori jiray meel baa ku dejin jiray markasta waan arki jiray yani meel oo aniga markasta arkayo aan ku dejin jiray okay si aan markasta u xusuusto ereyga aanan ilaawin eryaal badan baa jira waan u baahanay markasta inaan ku noqdo si aad si fiican u fahmo oo madaxayga u galo so writingna aad u muhiimsan yahay xataa hadaad rabtid writinga inaad imtixaanayaasha gashid oo writinga si inaad iska dhistid waxaad qori kartaa writing yani waxaad kitaab akhrin kartaa kitaabyasha ka qori kartaa waxaad samayn kartaa search baa gelaysaa مثلا موضوعياش oo la yaqaano for example health yani waxyaasha oo healthiga ku saabsan saxada ku saabsan qori kartaa waa iska dhisaysaa soo tartiib markaad qortid adaa baranaysid sida loo qoro si fiican sida loo qoro adaa arki doontid insha Allah tartiib yani waqti waaye wax kasta waqti bay qaadanaysaa soo waqti si waxaad jeceshahay inaad barato oo wax hadda ugu muhiimsan rabaan inii sheego mutaqaaniyo waxa ugu muhiimsan wallahi waxa waa luqadda inaad jeceshahay inaad barato waa inaad jecel ku galaa sid waxa hadaad jecel u haysid waad baran doontaa yani for example aan turkishka aad u jeclaa inaan barto subhanallah yani 7 bilood iguma qaadan waan bartay so aham shay inaad luqadda jeceshahay oo luqadda ka haysto inaad barato haday ka haysto inaad barato luqaddaas waa baran doontaa of course yani waa muhiim inaad luqaddaas waqti siiso oo baratid oo يعني inaadan dhihin aniga ma baran karo alla ma samayn karo yani inaad iska dhistid oo tartiib u sabartid adaa arki doonto insha Allah inaad baratay luqaddaas so yani waqti si iyo inaad waxa jeceshahay
oo waxa ugu muhiimsan yani aniga ahaan shakhsi ahaan fikradeeda yani so waqti siiya oo jecel hadaa jeceshahay waa luqadaasna waa baran doontaa ku aamin yani nafteeda u sheeg inaad luqadaas aniga waa baran doonaa okay waxaasna ha kaa jarnaato yani so insha Allah waa baran doontiin waxyaasha kale aan rabay inaan nii sheego kale maxaa ahayd okay hadda grammarkan ka hadalno grammarka waa muhiim hadaa rabtid jumlada inaad sheegtid waa muhiim inaad taqaanid jumlada sida loo dhiso waa muhiim so grammar ahaan waxaad samayn kartaa kitaab inaad soo iibsatid kitaab oo grammarka khuseeya kitaab waaxida waa kaafi yani waa kitaab waaxid waa kaafi kitaab waaxid inaad iibsatid waa kaafi kitaab baa soo iibsanaysaa for example ani kitaabkana isticmaalaa for example essential grammar yani grammaryaasha ugu muhiimsan ee asaaska kitaabkaas hadaa iibsatid for example kitaab kale hadaa iibsatid oo grammar ah oo grammarka fahamtid oo yani madaxaa gelisid khalaas grammar markasta in la barto lagu soo celceliyo muhiim ma aha muhiimka waxaa waa inaad taqaanid inaad si fiican ugu hadashid hadalka inaad taqaanid jumladayaasha badan adaa taqaanid inaad ku hadashid inaad practice badan sameysid inaad erayaal badan taqaanid waxaasa muhiima laakiin grammarka muhiim ma aha grammar muhiim wuxuu ku yahay bas imtixaaniyaasha hadaa gelaysid imtixaaniyaasha oo ingiriisiga laakiin grammarka hadaa taqaanid oo iska dhisid khalaas markasta inaad kusoo celisid ma aha so grammarka hal mar iska dhis kitaab fiicanna soo iibso iska dhis bas kusoo noqnoqon yani grammarka so waxaa muhiimka erayaal badan inaad taqaanid jumlayaal badan inaad taqaanid phrasal verb badan inaad taqaanid bas grammar badan oo madaxiina yani hadhiminina okay so sidaan ii sheegay grammar kitaab fiican soo iibsada kitaabkaasna ka barta bas halkaas ku istaajiya grammarka okay sidoo kale waxaa jira 2 website aan jecelahay aan ka bartay ingiriisiga aniga ahaan labadaas website-ka waan soo qorayaa halkan waxaa midka koobaad waxaa Vowel Learning English intaas level baa jira luqadaha ka baran kartiin levelkiina sheegaysiin levelkiina galaysiin ka baran kartiin mawduucyaal buu leeyahay website-ka labaadna waxaa waaye for grammar basic English grammar waxaa lahaa showenglish.com waxaa ka baran kartiin grammarka so labadaas website-ka aad oo jeclahay waa isticmaali kartiin waa geli kartiin google ahaan waa gelin kartiin waad ka baran kartiin waa free so ka faa'iidaysta waan isalaamay okay videogayga intaas ahaa waxaan rajeynayaa insha Allah ina faa'iido ka hesheen please like subscribe kayga ilaawina comment-kan ra'yigiina ii soo qore iyo videoyaasha kale iga rabtiin inaan ii soo geliyo waan isalaamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته